السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين سودا وهذا ميل بتودا ديودا كسوتهين وواسك دبلو وها كبلو فارح ولا الكيس معو كيكا يا رب بشير بالله وتانا حاسة قرن سعيب كيس قرش ودرس كيس كنا ولا وراو ناقر سيكو ساها جاب كجا لقتي مع السورية بناوين شنطة بغا بغوري. دمانتي واحد يكون سلام يا سلامة إسلامك ميل بتودا ديودا كسوتهين. دولة دمدا الصومالية واقولي ستي ومدى الصومالية واقولي ستي dowladdeedana waa guuleysatay social media iyo baraha bulshada waad arkaysaan buuqa iyo qaylada ka socda waad u jeedaan niman waligoodba booteen jiray qaylin jiray maanta inay qabiil isu bedeleen waad u jeedaan laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxa weeye dalka Soomaaliya in wadadii dowladnimada u dhabada saaray baa run ah oo xaqiiq ah oo wallahi aan la xaqiiri karin oo wallahi oo laga hor imaan karin oo wallahi xaqiiq tahay baan caawa idin cadeynaya dhageyso mahad salaadow dhageyso Cabdiraxmaan Odawaayow dhageyso kuwa qabiilka maanta ku hadaaqayow dhageysta Saadiq John Isweer baa laga hayaa Saadiq John Isweer baa laga hayaa Saadiq John Isweer baa laga hayaa Saadiq John waxa weeye khiyaano qaran buu galay waa dambiile waana la xirayaa taasana dawladda ka go'an taa ayada ah ayaa dawladda ka go'an caawa iyo maanta iyo berrito iyo waqti walba ka go'an wallahi inana beenahayn wallahi inana taasi beenahayn baan idin xaqiijinaya dhageysto maxaad kula talisoo tiraadeen ka guur magaalada inteeda kale u guur xaafadda ay reerkiina degan yihiin reerka Soomaaliyeed ee barta degan ee nabadda ku nool nabad bay ku noolaanayaan dhageyso marka dhageysta oo xaqiiqdana si fiican u dhageysta Cabdiraxmaan Odawaa wuxuu soo qoray hadda yiri saacadan waqtiga taagana waa idinka daba geenaya inay baashi isbedeshay ay dhinaca kale isu bedeshay baa idin tusaya oo raggan aan maalin walba ka hadlaynay in maalin walba oo duqbalow idin sheegay oo dawladda si toos ah idin ku sheegto inay qabiilistayaal yihiin ummadda Soomaaliyeedna ay dhib iyo dhibaato iyo barakac u horseedaan inay diyaar u yihiin yaa dawladana ku celinayso duqbalowna ku celinay dhageysto Cabdiraxmaan Odawaa wuxuu soo qoray caawa weerarka farmaajiya kooxdiisa ay ku qaadeen shirkool waa fal sharciga baalmarsan oo lagu qabjabinayo reerka uu ka dhashay dhageysta dalka reerka uu ka dhashay General Saadiq General ma madaxweynaha dalka Soomaaliyeed bana ka xayuubi Saadiq John oo la doonaya in dhaxdooda lagala soo baxo Cabdiraxmaan Odawaa waa in adeerka Soomaaliya waa reerkaaga Soomaaliya Saadiq John dawladda federaalka ee Soomaaliya yaa soo xiriso Isweer bay caawa ka hayaan ciidamada Harwacad Isweer bay caawa ka hayaan ciidamada Gorgor Isweer bay caawa ka hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Muqdishona kii awood leh oo qabiil maanta dareensan qabiil wax ku tari karo nin rag hadaa tahay caawa soo bax oo berri soo bax oo bari dambe soo bax oo hal lagu arka markaa iyada middan ummadda Soomaaliyeed u sheegayo ee ugu bashaareynaya waxa weeye dambiile kasta oo dalkan qalad ka galo dambiile kasta oo qalad dalkan ka galo wallahi waa xarig way soo dhamaatay waqtigii reer iyo qabiil dabada la gelin Saadiq John darraato asoo sarkaal ciidane oo dawladda aamintay oo ciidan Soomaaliyeed lagu aaminay soo ninka damcay dalka Soomaaliya inuu dagaal sakoyo u horseedo maayn ninka ku dhawaaqay Muqdisho iyo baarlamaankeeda waan kala diray Soomaa qayaano qaran buu galay dambiga uu galay baana lagu qaadaya ninka ragga ah iyo naagta dawladda ka hor imaan karto ee qabiil ahaan uga hor imaan karto soo qaado qoriga maanta waaya qoriga soo qaado oo soo dhaqaaq oo dawladda ka hor imo haddaad gabar tahay haddaad nin tahay haddaad xildhibaan tahay haddaad sarkaal tahay ciidamada Harmacad oo Soomaaliyeed oo qabiil kasta oo Soomaaliyeed ka tirsan oo darees ka wada xiran oo la garab taagay dal iyo dibadba la garab taagay yaa wallahi soo afdaray ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Odawaayow maanta meeshii ugu dambeysay ma maraysa ummadda Soomaaliyeedna maanta ma ku jeedaa ummadda Soomaaliyeed maanta ma ku arkaysa inaad tiri Saadiq John reerkaygiiyow yaa la idin kala soo dhaxbixin reer iyo dawlad isma dhigmaadee أنا هذا كوشجي رر يدولد اسمه دكتان فرماجة وكلي تلية فرماجة عود ملء ذلك وحوي وكسارينا أنك قرية قادرينه ومد الصومالية وين نعذي قبيل وين نعذي ومد الصومالية وين نعذي وحلا يراذو دقال سكي دم بيله هو السوق بريا right now ساعدا أعيد له الله إذا كجرجر إذا كهرمعد إذا كحوك ذلك الصومالي يا كهري ريسا
way soo dhammaatay booto way soo dhammaatay baryo way soo dhammaatay sasabitaan hadda waxay maraysaa awoodda dowladda Soomaaliyeed in loo xaqiijiyo oo la dareensiiyo kuwa u maleynaya dowladnimada Soomaaliyeed inay qabiil kula dagaalami karaan kuwa u maleynaya dowladnimada Soomaaliyeed inay qabiil ka horgeeni karaan kuwa u maleynaya qabiilkooda inuu ka sarreyn karo madax banaanida Soomaaliyeed waa la dareensiinaya caawa cabsiba ku joogtaa mahadow caawa ma dareemaysaa kuleelka dowladnimo caawa ma ku hayaade ma karkaraysaa caawa kuleel ma ku hayaa waxay yiraahdeen waxa kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha waa xukuumadda dalka Soomaaliya ugu sarreyso waana ninka amarka bixinaya ninka la yiraahdo Axmed Qorqor yay beeg iyo barbaganda ka fidiyeen iyo waxaan jirin bay ka fidiyeen waxay leeyihiin Axmed Qorqor baa xabadka u dhigtay Axmed Qorqor meesha la yiraahdo Galmudug iyo Dhuusamareeb ayuu madaxweyne ka yahay waa nin dalkiisa jecel umadiisana u hiilnaya Saadiq John waan ku hareeraysanna habartii qabiilka aaminsaneed aaway odagii qabiilka aaminsana haddaad rag tihiin oo qabiil maanta qor intaad u soo qaadataan oo dowladda aad ka hortay kartaan oo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliyeed hor istaajin kartaan haddii xaafadda shirkoole uu joogo ciidankiiba ku harraysan makarafoonna hor yaallo bal wakaase ka qabiil intuu soo qaato harmacad iyo gargar soo istaagka hal arka marka been bay baratay bootay baratay caawana waad calaacalaysaa ka war odawaayow caawana waad calaacalaysaa oo hin iyo calaacal iyo raahebeley reerka nagiyow yaa reer xaaji Saleebaanow yaa reerka ka dhashay reer xaaji Saleebaan waa culumo reer xaaji Saleebaan dowladdan ayada ku dhisan tahay ayaga dowladdani magaraysaayay lugaheeda iyo gacmaheeda waa ayaga laakiin gacan ku dhiiglaha qayaanada qaran galay ee isku dayay dalka Soomaaliya amnigiisa inuu khalkhal geliyo ee ku dhawaaqay in dalka Soomaaliya baarlamaankiisa xiran yahay ee dowladda Soomaaliya challenge garay caawada wiilal Soomaaliyeed oo dareeska u xiran yahay yaa saa ugu hareeraysan sidaasay ugu hareeraysan wallahi nan laga soo dhaqaaqayn ana hadda ku sheegay waxaa tiri odawaayow reerka nagiyow yaa laydi kala soo dhaxbixin ninka asaga yaa laydi kala soo dhaxbixin ninka asaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacan ku dhiiglahaas tuuga ee ummadda Soomaaliyeed qayaanada ka galay sharciga la keenaya sharciga la cabsibuuna la carraka war dowladdan inaad dowladdan waxaad aragteen fiicnaanteedii iyo wanaageedii baad aragteen baryadeedii iyo dhinaceedii macaana ee sokorta ahaa ee magaranaysaa ee malabka ahaa ee quruxda badnaa yaad aragteen oo dhadhamiseen freedom of speech ayaad haysateen ayda doontaan iyo waxa doontaan ayaad oranayseen waxaad aragteen dowladda macaankeedii dhan magaranaysaa ee malabkeedii fiicnaanteedii ayaad aragteen laakiin hadda waxa la idin diyaarinayaa oo arkaysaan dowlad xanuunka ay leedahay dowlad in laga baqo yaa la idin daraysiinaya sida aad markaad wadamada kale aad joogtaan dowladda wadanka ka jirta aad u ixtiraamtaan inaad u ixtiraamtaan dowladayda Soomaaliya insha Allah haddii ilaahay wallahi baanan oranaynin reer hebel wallahi buusan qof dowladda taageero oo qof dowladda ma garaysaa aaminsan ama nidaamka dowladnimada aaminsan wallahi buusan oranaynin reer hebel laakiin tuuga khiyaanolaha waligiiba dowlad arag isbaara kunaha isbaarada waligiiba ka guranaya irsaaqada ka guranaya markuu dowladnimada iyo wanaageeda iyo fiicnaanteeda iyo quruxdeeda iyo awoodeeda marka uu dareemo uu dhadhamiyo iyo wuxuu bilaabaa reer hebeley reer kanagiyow ciidanadiyay ciidan ka dhashayay yaa ninka la idinka soo dhax saarin yaa ninka la idinka soo dhax bixinin war wiilasha Soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u dhaartay ee dhaxanta u taagan waxay diyaar u yihiin tug walba qiyaano walba in gacanta lagu soo dhigo aaway ninka yiraahdo Cabdiraxaawada waayo xaafadda uu maanta ku sugan yahay ninka Saadiq John ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa jooga muqdisho iyo dalka Soomaaliya intiisa badan waxa way ciidanka xoogga dalka iyo dawladda Soomaaliyeed gacanta ku hayso kanna wuxuu tusaale u noqonayaa hadda ku sheegay Saadiq John ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa ka go'an inay saldhiga soo dhigaan taasa ka go'an waxaana lagu tusaale lagu siirayaa oo lagu dareensiinayaa oo la rabaa inay ogaadaan oo dareemaan awoodda dawladnimo ay dareemaan adiga iyo kuwa kula halmaalo ee qabyaalada iyo qabiilka aamina ummadda Soomaaliyeed waa ka daashay qabiil ummadda Soomaaliyeed way ka daashay qabiil dhageyso marka
هذا الكي قاعد دقيش نيكاليرا صادق جون iyo nin kale oo hadda garanaynin oo meelaan qurbaha ka tago koronto la yiraahdo kaasa gacmuhu taagtaba saacad hore daqiiqado hore gacmaha taagtay wuxuu yiri anigu been baa laga abuuray aniga ma oran buu yiri oo gacmuhu taagtay saadaq john wuxuu isku dayay sidii ninkii ahaa indha cadde inuu qalalaasa ka kiciyo ramadaankan magaalada muqdisho wuxuu dabacsanaa laba ilaalo la socotay iyo rag meelay ka yimaadeen la garanayn oo argagixisa oo al-shabaab oo murtidiina oo meelay ka soo galeen aan la garanayn asoo wato waxa la arkay eelboorkii iyo eeriyadiisii socodka ku badiyaa la arkay oo soconay dawladda inay ku degdegto oo ninka ku degdegto diyaar uma hayn maadaama xilki laga qaaday darajadiina laga tiriyay uu shacab noqday uu yiri walaalayaalow hal la ii daayo halka gaari iyo afarta askari hal la ii daayo uu yiri oo garashay korka laga socday oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dawladduba ay la socotay iyo wuxuu bilaabay in ciidamada si laga soo dushiyo kantaroolada in ciidamada aan la garanayn qoryo aan la garanayn laga soo dusiyo oo ma garanaysaa guriga uu degay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ku yaala ku dhagan meesha la yiraahdo Hotel Jazeera oo elboor ku dhow in lagu arkay rag badan oo wada qayilayo marqaansan oo ma garanaysaa tabeebixir oo qanafiil daran ku hayo oo isu diyaarinaya inay qaraxiyo iyo dhibaatooyin ka rudan Muqdisho oo nabad ah oo Ramadaan lagu jiro ummadii ay ma garanaysaa suxuur iyo fur isu diyaarinaysa lagu arkay dhageysh markii laga war helay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isu soo diyaariyeen faqata cagu wax ka day laba rabi la xira su'aalaal rabay la weydiiyo su'aalaal rabay la weydiiyo waa maxay ragan ma garanaysaa mooryaanteed weyto illa yiraahdo Soomaaliland laba askari hal qoriban isku ogeysoma illa weyd markii uu arkay in lagu soo socdo oo su'aalaal la weydiinayo laba gaari wuxuu la carray ragii wada tabeebaha watay uu la baxsaday magaaladii uu la carray هذا الكاذب دقيس وكرب بح مقالة حافظي غيره ذي عدة دقيقين بولاد حقي ولا فريست إذا كحوق الدلك الصوماليات دولة دي الصومالية إيه ومدى الصوماليات وحي ديار ويهين إنا الدفاع ذان قرن نمضغض إنا الدفاع ذان دولة نمضغض قبيل كإسكودة يكرئينو الدولة كهري ماذا كاوي الدولة دن oo Soomaaliya dhan ka midaysan tahay oo Soomaaliya dhan ku jirto kaawaya ka qabiil intuu dabada geliyo reer ku kicin karo adeer Soomaali ka tashatay arintayada waa dhaqaaqo baabuurtii wuxuu leeyahay xaafad reerkoodii iyo jifada uu ka dhashay dagayhiin ciidanka Harmacad ciidanka Gorgor ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo sida Rangers u tababaran oo wallahi aan daqiiqada yar aan ku qaadanaynin in laga soo baxo dabaqa uu dagayahay daqiiqada yar aan ku qaadanay yaa saa u hareeraysan أنا لا هذا صباح الوير صباح إلا هذا السعطة ريا صباح برنامج وصباح we have a question for you سؤال بنكوق بنايا صباح بالوير أو كوي سؤالي السوشيال ميديا كوي أنا معانا توطان وشقيرية جالد لماذا أنا وشقيريس صباح بالوير استعدق جون برنامج so استاج we have a question for you إنه النبات كجوجا يا مقدسه أو شعب ونقريه إين مجرسة حالته بريء حنقط وعرّو دربيه وحسك شعر حافظ ركضي وهو عيل ما نظر يرق سياسيين والله وير رياي وير بالله يسوق هذا ياي وحاوي والله يدل ياي على الهداد أو يسد أو اسكو حار يسد أو كذا يا حركة اسكو سيدار يسد ما إذا علاقة كيري maxaa ku keentay inaad la challenge garaysid dawlad ciidankeeda inta uu leeyahay oo ciidankeeda sida u tababaran yahay oo nidaamkeeda sida u degan yahay oo ma garanaysaa aadan maxaa ku keentay inaad la challenge garaysid haddaad xaaraysid oo xaarka iyo kaadida isku daraysid xaarka iyo kaadida isku daraysid oo aad ma garanaysaa kaadida iyo shubanka isku daraysid oo aad ooyaysid oo kii ku matalaya fiiri oo waa Soomaaliya booteri Muqdisho oo nokale Muqdisho wax walba ku sameena war Muqdisho dad baale dawlad baale dalbka waxa weeye nidaam baa ka jiro nidaamkaas aan shaqeeyo Cabdiraxmaan oo waagaad u dirsatay ee dadku ugu sokeeyay Saadiq Jorow you watch waa daawanaysa laakiin waa lagu soo dajin su'aalaha aan ku qabno ee dawladda ku qabto ee ciidanka dambe baarista ku qabaan waa lagu weydiinaya ka war waxaana la xaqiijinaya oo si xaqiiqo loo tusaya cadawga ummadda Soomaaliyeed kay soo dirsadaan oo amnigayga damcaanay khalkhal ku galiyaan in wiilal iyo gabdho u dhaartay kitaabka Quraanka maray in ay joogaan oo kala soo baxay dabaqada ka masajada u dirsatay ee aad reerka u dirsatay Cabdiraxmaan Odawaama muxuu soo qaranaa ku akhrinaya dhagish tabar ma hayo
ciidan ku difaacana ma hayo dawladna kaama dhicin karaana ku sheegay dhageyso adoo gacmaha taagtay oo saa gacmaha u taagan yihiin haddayna ummadda Soomaaliyeed ku arkin been baan ku sheegay Saadiq Joorow dhageyso wuxuu yiri caawa weerarka farmaajiya kooxdiisa ay ku qaadeen shirkool waa fal sharciga baalmarsan oo lagu qabjabinayo waa lagu qabjabin ma ahe waliba waa lagu bahdili wallahi waan soomanahay moogi intii lagu bahdilaad sidaad hadda caawa u xaaraysid eed isugu kaadinaysid eed subanka iyo kaa isugu daraysid yaa kugu soconaysa kor wuxuu yiri shirkool waa fal sharciga baalmarsan oo lagu qabjabinayo reerka uu ka dhashay Generaal Saadiq oo la doonayo in dhaxdooda lagala soo bixi wala xiri ana ku sheegay banka yar Cabdiraxmaan waayo waliba cadaa haday farku soo gasho dawladda Soomaaliya ciidankeeda iyo sirdoonkeeda wallahi kula soo baxayaan xasaanadu madleeda moogiye laakiin de ma ooyeysa ma dhawaaqaysa ma baryootabaysa misku dayaysa inaad qabiil u badashid inaad qabiil iyo reer iyo dad inaad kicisid ma isku dayaysa laakiin socon maysa mid soconayso oo idiin shaqaynayso mare macaankii dawladda saad u xoganayseen oo aad u xaganayseen oo aad u garaysaa u leefayseen dawladda macaankii waad ka dhamaysteen tuutaha shaqaynaya ka war tuutaha shaqaynayo oo wallaahi oo billahi idin barayo nidaam iyo nabadgelyo inaad Muqdisho ku joogtaan hooyooyinka Soomaaliyeedna aad nabad kula noolaataan boota dambi iyo reerkanaga iskala iyo ciidanada iskala iyo qoyskanaga iskala iyo magaraysaa familkanaga iskala adeer meel yar oo jingad baa lagaaga soo xiraya meel yar oo jingad ah yaa lagu soo xiraya waxay lahaayeen darrata Cabdiraxmaan Odawaaye waa magaalada waa isku aamini waayeen magaalada waxa laga baqay magaraysaa in qolo kale tabalaaysa ka baxdo uu ka baxayo reerkooda meeshuda reerka xaafadda uu degayahay nabad buu ku deganaanay waana dadka dawladdan reer Xaaji Salaam reerka la yiraahdo waa reerka ugu sharaf badan Soomaaliya way saraakiisha ugu badan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ayaga way laakiin gacan ku dhiigla ee isku dayay inuu dawladayda ama dawladda Soomaaliyeed la challenge gareeyo dabaq intuu fuulo isku xaaraya dabaq intuu kor ka fuulo isku kaadinaya waa la soo weeray adeer rag baa kaaga horreey inda cadda kaaga horreey intuu soo istaagay beesha daljirka daasoo la yiraahdo yaa 20 daqiiqo wax ka yar ya gacmaha taagtay wow gacmaha taaganay caawan adiga gacmaha ma taaganaysa adiga gacmaha ma taaganaysa nin xildhibaane oo xildhibaan sheeganay ma ornaya reerkaagiyow ya hebel la lagala soo dhaxbixin adeer hebel hadduu dambiila yahay wallahi buusan reer hebel aysan difaaci karin dhageysta Soomaalida inta nabadda jecel banu sheegay dawladda Soomaaliya qabiil ma dawladda Soomaaliya qabiil walba oo Soomaaliyeed ba ku jiro qabiil kasta oo Soomaaliyeed oo geeska degan yaa ku jiro mucaaradka kuwa sheeganaya institution inay mucaaradayaan ugu dambeyntii sida ma u hadlayaan ugu dambeyntii maanta social media iyo idaacadaha ma la taagayn reerkanagiyow ciidanadii qabiilkanagiyow reerkanagiyow ma ku hayaan waxa la isbarayaa baa la sheegay waxa soo dhamaaday baryadii baa soo dhamaaday waxa soo dhamaaday tuugmadii baa soo dhamaaday waxa soo dhamaaday sabitaankii ayaa soo dhamaaday gaaladana runta loo sheegaya oo wallahi been ma Mareykan iyo magaraysa Ingiriis iyo European Union ya runta loo sheegaya oo soo faragelin karin dalka Soomaaliya doorashadiisa iyo arrimihiisa soo faragashan karin kuwa gudaha jooga ee Mooryaanta ee isku sheegaya inay siyaasiyiinta yihiin ee isku sheegaya inay magaraysaa elite-ka madaxda yihiin hadday u hoggaansami waayaan dawladnimada waxa lagu qabanayaa gacan bir yaa lagu qabanayaa waxa la gaarsiinayaa heer xaarka iyo shubanka isku shuban caawan ku hareereysanahay oo su'aalaan u qabaan ninka Saadiq Joor la yiraahdo cid iga celin karto iyo cid iga reebi karto iyo cid ka leexay oran karto iyo cid inta u baxay oran karto male ilaa aan gacanta ku dhigan ninka Saadiq Joor la yiraahdo oo tug oo qayaano qarangal ilaa aan gacanta ku dhigo cid iga soo horleexinayso Soomaaliya way guuleysatay awoodeedana la soo baxday wakaase ma salaadi ki kalaw reer hebel iyo daaroodow iyo hawiye iyo isaaqow la kaca hawiye iyo isaaq iyo daarood gool hore waqti hore
war hore od adiga hurdood mooryaanayd oo aad dadka dhacaysa iyo ka guuleysteen oo ka socdeen qabiil iyo reer dad loo kiciyo dalka dawlad baa ka jirto dawladana awoodeeda ku tusaysaa haddaad u hoggaansami weyso hoggaanka magaraysa nabadgelyada iyo magaraysa xasiloonida dalka haddaad u hoggaansami weyso oo reer baan haya qori baan la soo baxayaa tira wallaahi oo billaah tabaq baad fuuli magaalada intaad isku aamini weysid oo fiiri isku aamini weysid reer weyn baan ka dhashayay unukaale muqdishoy reerka naga iskale muqdisho ma ku tustay inay muqdisho caasimadii tahay saadiq joonow ma ku dareensiisay muqdisho inaad shakhsi ka tahay ma ku dareensiisay ma carrta caaw ma ka dhex baxday hawiye balaarane oo ilaahay boqortooyo ka dhigay adoo dhex fadhiya ma fakata caaw الله وصومنا والله وحن بوتضوذا إيا مقرسايا نعنعذوذا إيا أوهنتوذا إيا هادرانا إنا فيكتميين يا عيلي قدش ولا صادق جون مركز الجزيرة نحفل إذي إيا مقرسايا مقدشو عاصمة برطان كذا نحجوكتي أو داود ماشا ولايا نحتاقند إيا هوية بلارنا ماشا ولا نحتاقند إيا بوتيريسي إيا قبيلكم بوتيريسي مدر أنت إنا تسخسي كتاي مقدشو oo lagu arkay amnigiina khalkhal gelinaysid ma darantay dawladda inay dalka jirto ma carrtay baabuurta qaatay ma misisiideys reerkanagi reer xaj salaamaanow waa la bursanaya guriga ugu dheeri saara dabaqa ugu dheeri saara war farmaajo ay soo daba socdo war dawladdii bay soo daba socdo war faarax qoraal ay soo daba socdo ma tiri ma darantay inay dawlad jirto ma lagu dareensiiyey in dalka dawlad ka jirto ma lagu dareensiiyey tug walbo isku daya tug walbo oo isku dayar tuutaan baa soo qabanay والله أنا بين توتاس أيا سوق بريو سو حرك يا شبك يا كائن تسكت دري كلا قرنا يعني صوت بين يا حفظ الجيري مقدسوا النبض ومدنا رمضان كسوينا كسر قروح بدل كنا ما يصير إسام بس عالم كلور ضينا حقيقة نبتة كنت اللو شيء صادق جون ما عاون كهر الرسالة هيد عاون كرسارنا عاو سيداسان ugu hareeraysanay weel al-shabaab loo tababaray inay dabaqyada iyo hoteelada kala soo baxaan yaa sida caawa ugu dul sareyso uu cabsanaya war hadla war dhawaaqa war sameeya reer muqdishadii saxda ahayd ee iskala heed baa ku tiro naga bax orana dhaaf lagu yiri aad carabta isku halleen weys abgaal waa isku halleen weys mursada waa isku halleen weys sacad habar gidir waa isku halleen weys ayr waa isku halleen weys فقط وعرته مال كلام اسكو آمنيو يا مال كلام آمنات كهليو يا مال كلام كله مرة يا ملا غير حاج سليمان هلي دحجيو هلا يبد بعديو محاك هو كل فيه هذا ما كنت توتكوي عرني توتكوي عرني كقولني وردال كانوا شغال مدة وشغال ويري محاك هو كل فيه إلى الدولة ده أنا جالس كريم لقيش تبرك ذلك هو النبض وبين يبربجان هذا الكيد الله يهين قرقر بس بدله قرقر اسمه بدل قرقر حساب مسؤول كأ ذلك الصومالي حساب مسؤول كأ والله نوس بدل اسمه بدل الدون ولا اسمه اسمه بدل الدون رئيس الوزراء حس على غير حس على الغيريين صغير كسياسي يقدر تقول نيك اللي يرى هذا الروبل أو حفظ الله رئيس الوزراء ذلك كهيا أمني حق الجريم روبل أو رئيس الوزراء ذلك كهيا أمني حق الجريم قبوغيسات برتين روبل وناقيسات برتين روبل في عنانتيسات برتين روبل وناقيسات أركتين روبل لكن هذا قرار كيسة ندميا ننكر إلى هذا الروبل إذا كيغا وهيغن إذا كيغا لك القيبين مايو ده بغير إنساريح إذا كو حاريا ويدي سودريا مقدشوا النبط وحياب لذا سكرنا ويدي كسونا قدونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته